aadaanku waa u yeerida ilaahay muslimiintan waxay u tahay calaamad 14 qarni soo socotay Allahu akbar Allahu akbar magaalooyinka muslimiinta marka tagtid waxaad maqlaysaa codad aadaan ah oo masjidaha laga soo aadaamo dhan walba direction walba dhankaasoo aadaanka kasoo yeerayo marka aadaankaasi wuxuu dareem geliyay ama shucuur geliyay aktarooyin aad u waaweyn Bollywoodkana canka ah ayuu ka sheekeenayo ayagoo ka sheekeenayo dareenkooda iyo sidoo noqday ayaa maanta ka hadli doonaa ilaa iyo ay ku ooyaan markay maqleen aadaanka masjidka soo marka asxaabta waxa idin lehnahay waa anigoo ah Ibrahim subscribe-ka iyo share-kan waa xaqiina waxaan ka hadli doonaa arintan aadaanka ah ninkan waa Freeman waa Morgan Freeman wuxuu ka hadlayay dareenkiisa markuu maqlay aadaanka sidoo noqday ayuu ka sheekeenayaa iyo meesha uu ka dhex aadaamay wareysiga dhexdiisa qaabku dareemay most haunting and beautiful sounds in the world is the Muslim call to prayer. What Allahu Akbar. How about that? بيعمل اختبار. Have to work on that. Have to work on that, okay. jilaaga lagu magacaabo Liam Neeson ayaa filim ku jilaayay wadanka Turkiga ah filimkiisa intuu jilaayay hotel uu seexanay ayuu ka maqli jiray aadaanka kadibna wuxuu tacbiir ka bixiyay ama dareenkiisa ka bixiyay qaabku ahaa yaani markuu maqlay aadaankaasi qaara waxay sheegeen in yaani uu ku dhawaaday in uu islaamo aadaankaas markuu maqlay laakiin warbixin lagama helin inuu islaamay iyo in kale asigoo ka sheekeenayo waa kan Right. Yeah, so you have been traveling a lot, huh? Yeah. And this movie takes place in Istanbul. Istanbul in Turkey. And how was that? It was beautiful. It's a stunning city. It used to be in the old days known as Constantinople. It's the gateway between the west and the east. Right. It's rich culturally, historically, and there are 4,000 mosques. And the call to prayer starts at 5 a.m. every morning. So when you have your alarm clock set for 6 a.m., it's the first week it was a bit annoying. Do you get used to it? But like Ellen, it just gets into your soul. Yeah. It became the most magnificent wake up. When I was doing Taken 2 in Istanbul, the call to prayer, the Muslim call to prayer starts at like 5 o'clock in the morning. It's an extraordinary sound. Wow. So the first week it was like, the second week it was like, it's kind of quite nice. But the third week I was totally captivated by it. Loved it. So then I thought maybe Islam's the answer. jilaaga hindiga ugu weyn Salman Khan waa taqaaniin asigoo meel ka qudbeenayo oo saaxiibkiisna la taagan ama mudanaha meesha la taagan ayaa dhagihiisa waxa ku soo dhacan aadaankaas kadibna saaxiibkiisa ayuu ku dhawaaqay ama uu u baaqay in aadaanku uu xishmeeyo oo wax yar u aamuso sabarka saaxiibkiina way uu aamusay dadkii kala meesha joogayna way aamuseen ilaa iyo aadaanka uu ku dhamaado kadibna wuxuu bilaabay in uu ka hadlo islaamka iyo dareenka uu u qabo iyo xishmada islaamka uu ku leeyahay ayuu dadka kala hadlay uu sheegay kadibna wuxuu bilaabay inuu ka hadlo jaceelka uu u qabo muslimiinta iyo dareenkiisa wuxuu ahaa इस्लाम के अंदर एक बेगुनाह की जान लेना मतलब कि पूरे इंसानियत को खत्म करना है सिंपल है इस्लाम का मतलब पीस है aktarada Priyanka Chopra ayaa la weydiiyay markay aaday wadamada Carabta waxyaabaha ugu cajiibka badnaa waxayna ku jawaabtay in aadaanka ugu cajiib badnaa markay maqashayna ay dareentay degnaan iyo xasilooni ay ka मैं अपने टेरेस पे बैठती हूँ पैकअप हो जाता है आई थिंक 8 बजे के करीब जब आज़ान सुनाई देती है ना वो पूरे भोपाल के आई थिंक हर मस्जिद में आज़ान आती है तो मेरे टेरेस पे एटलीस्ट 6 मस्जिदों से मुझे सुनाई देती है तो वो 5 मिनट जो होते हैं मुझे बड़े अच्छे लगते हैं सनसेट हो रहा होता है एंड माइक्रोफोन पे आज़ान की आवाज़ आ रही होती है एक तरह का बड़ा
strange सा peaceful माहौल होता है. That's my favorite time. dareenka aadaanka kuma ekeenin Bollywoodka aktarada Bollywoodka kaliya wuxuu u sii gudbay kuwa wariyaalka oo dalalka kale ka imaaday ayuu u sii gudbay dareenkeeda iyo waxyaabaha aadaanka uu xambaarsan yahay ayaa ka sheekeynayso gabar u dhalatay dalka Talyaani wariye caan ah magaceedana la yiraahdo Kit ayaa ka hadli doonto arintaas bal nala dhageysta ayadana tacbiirka ay ka bixin doonto iyo waxay ka dhihi doonto. What timing! From every direction. 36 mosques in 1 square kilometer. And it's been calling for 1400 years. Oh, it's beautiful. And it is the same word from the time of the Prophet. And look, people closing their shops and everybody is going to pray. Just magical. Very well. It's such an incredible sight and sound that I find myself completely overcome. And soon they will be reading Quran and maybe one of them will be reading the story of Jesus and Mary because it's in the Quran and Moses. Look at the shop they're closing to go to pray. gabadhan waxay ka soo jeedaa dalka Brazil waa gabar iyo tuubrad ah waxayna ay imaaday in ay ka duubato aadaanka laakiin si lama filaan ah aadaankii markay duubanaysayba waxay bilaabday inay u soo jiito aadaanka markay maqashay. Desculpa, gente. Muito intenso. Juro, muito intenso. cunuga yar wuxuu dhalan yahay maalmooyin kaliya ah waxa xaflad loo keenay ama booqasho ah meel guri ah laakiin cunuga uu joojin waayay oohintiisa ayaa aad u batay markaas ayaa nin ku bilaabay inuu ku aadaamo wuxuu ka bixiyay cunuga isoo noqday bal ila fiiriya subhanallah. naagtan waxay ka soo jeedaa dalka Faransa waxayna halkan u imaaday dalxiis iyadoo dalxiiskeeda iskaga jirto ayay ku dhacay dhigaheeda aadaanka maxay noqotay bal ilfiiriya. Today in Riyadh to be able to hear the adhan, it's just amazing. Why are you crying? When I listen to the adhan, it's very emotional. It's amazing. فيديو hadduu idin qanciyo asxaabta waxaan idin codsanaynaa inaad noo saartaan subscribe iyo share kan waa xaqiin halkaad ka daawanaysaan waa Aala Official waa aniga walaalkiina Ibrahim sidaas iyo nabadgelyo.